wafdi ballaaran oo hogaaminayay wasiirka wasaaradda awlaha guud iyo guryeynta jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Cabdi Xaabsade isla markaana ay ku wehelinayaan safarkooda la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhanka siyaasadda Maxamed Muuse Abees ayaa soo gaaray maanta magaalada Laascaanood. waftigan ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood iyadoo ay ka qayb galeen maamulka gobolka, degmada, ururada haweenka, kuwa dhalinyarada iyo bulsho weyn aad u tiro badan. waftigan ayaa ujeedka socdaalkooda lagu tilmaamay inay ka qayb gali doonaan munaasabadda 18 Maayo. waftigan ayaa sidoo kale u kuurgali doona xaaladda guud ee magaalada Laascaanood. si kastaba ha ahaatee waftigan oo ka qayb gali doona munaasabadda 18 Maayo ayaa lagu dejiyay Hotel Xamdi ee magaalada Laascaanood iyadoona ay u kala hadhin gudoomiyaha gobolka Sool Maxamed Faarax Aadan, maayarka magaalada Laascaanood Cabdiqaadir Jaamac Saalax iyo bulsho weyn aad u tiro badan oo ka soo qayb galay. وحمزة عبد الرحمن أحمد مقالة الله سبحانه وتعالى حرمته قبل كسول.